bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada waa mar kale iyo maadadii xisaabta dugsiga sare ee fasalka afraad amaba form 4ka qaybtan waxaan uga hadli doonaa exampleka labaad ee jabtarka koowaad examplekiisa labaad ayaan uga hadli doonaa jabtarkaas waxaan kusoo qaadanay qaybtii ka horeysay example 1 qaybta koowaad oo aan uga hadlaynay sum and different oo cosine hal example ayaa kasoo bixinay exampleka labaadna qaybtan ayaan ku qaadan doonaa insha allah exampleka intii la bilaabin ka hor waxaa jira marka wax la yiraahdo functionist iyo cofunction wax la jirto functionist iyo cofunctionist markii laga hadlayo waliba qaybta xaglaha markii la joogo waxaa jira identities kuwaas oo u taagan xagal walbo ama halagu siiyo theta halagu siiyo ama xaraf kale halagu siiyo midaas oo functionadeeda lagu diyaarin doono tusaale ahaan trigonometric identitieska waxay leeyihiin ilaa 6 qaybood ay ka kooban yihiin sin cos tan cosec sec iyo cot lixdaasba laba ay wax isku aadi doonaan waxaan dhihi doonaa labadaas isku aadayaan cofunction ayaa loo yaqaanaa tusaale ahaan coska iyo sinka kaleeto haddii aan fiirino qaacidooyinkan cos 90 minus theta waxay kula egtahay sin theta sin 90 minus theta na waxay kula egtahay cos theta meeshaas waxaa kaaga cad ama aad kala soo bixi kartaa meeshaas in sinka iyo cosa iyo maxaa leeyahay coska ay isku yihiin cofunctionist sidaas si lamid ahna tan 90 minus theta iyo cot 90 minus theta ayakana waxay isku ahaan doonaan tanka iyo cotka cofunctions ay isku ahaan doonaan sidaas la egna sec iyo cosec ayakana waxay isku ahaan doonaan maxaa la dhahay cofunctions ay isku ahaan doonaan marka waxaa ogaataa identitieskan oo hadda inta aan ku aragnay sidaas micnaha qasab ma ahan in loo adeegsado waxaa jiri doono markii exampleka laga shaqeynayo haddii qiimo ahaan lagu siiyo qiimo ahaantaas ayaa u adeegsan doontaa haddii radian ahaan lagu siiyana radian ahaan ayaa u adeegsan doontaa qaabka radian lagu adeegsanayo wax kale ma ahan waxaa samayn doontaa horaadyada ayaa waxaa ku bedelan doontaa tusaale ahaan haddii uu yahay 90 degree waxaad ku bedelinaysaa pi over 2 sida hore aan usoo sheegnayna qiimaha pi oo ahayd 180 haddii laba loo qeybo maxay u dhigmataa 90 marka waxaa jiri doono 90 degree minus theta qiimayaal oo waxaa jiri doona hadhow oo examplada ama exercisada aad ku arki doontiinba qasab maan inaad qiimo isticmaashid haddii value lagu siiyo value adeegso haddii qiimo lagu siiyo qiimo adeegso haddii radian lagu siiyona radian adeegso marka aan bilaawno marka examplekeena bismillah exampleka 1.2 oo ah jabtarka koowaad examplekiisa labaad maxaana loo dira marka fiiri find one value of theta or x waxaa jiraysaa lagu dhaha hal qiimo oo ah qiimaha theta iyo qiimaha x midaas oo maxaa leedahay that satisfies each of the following mid walba oo soo socota qancin doonta marka raadi haddii aan ku bilaawno marka midka koowaad oo ah cot theta waxa uu kula egyahay tan 25 degree raadi qiimaha theta sideen u raadinaynaa markii aan raadinayna maxaas u baahanahay marka waxaan sameynaynaa marka kow solutionka soo qorano solutionka a aan dhahno a marka maxaa lagu siiyey a waxaa lagu siiyey cot theta waxay kula eg tahay tan 25 degree waxaad raadinaysaa qiimaha theta qiimaha theta ma taqaanin marka waxaad u baahan tahay marka qiimo kaleeto ee aad taqaantid qiimahaas oo aad la barbar dhigi doontid thetadaada si ay kugu soo baxdo qiimihii theta qiimaha uu leeyahay hadda intii aan soo sheegno cofunctionistkiya dib ugu laabanayna marka waxaan isweydiinaynaa marka cotka iyo tanka xiriir nooce ka dhexeeyo sida hadda soo sheegnaba cotka iyo tanka labadoodu waxay isku yihiin cofunction marka waa kuwana qaacidooyinkii waxaa dhihi doontaa marka fiiriya cot theta waxay kula eg tahay tan 25 degree markii lagu dhahayo cotka waxaa cofunction ku ah tanka sidaas awgeed waxaa noo soo qaadaa marka tan 90 minus tan 90 degree minus theta waxay kula eg tahay cot theta qiimahana soo qaadanayna sababta u soo qaadanayna wax kale ma ahan maadaama cot theta intan ay kula eg tahay qiimahan markii aad soo qaadatid booska cot theta waxaad ku bedelan doontaa qiimahaas ayaad ku bedelan doontaa waa kana u fiirsan marka maxaa samaynaysaa fiiri tan 90 minus theta waxay kula eg tahay cot theta soomaan qaacidadii soo qaadan kow qaacidada marka aad soo qaadatid waxaa samaynaysaa fiiriya booska cot theta waxaad ku bedeli doontaa mujida meeshan waxay kula eg tahay cot theta soo lagu marin booska cot theta oo ah qaybtani waxaad ku bedelinaysaa tan 90 minus theta ayaad ku bedelinaysaa waa kana soo qora marka tan 90 minus theta waxay kula eg tahay qaybta dambena sideeda loo soo qaadanaa sababta loo soo qaadanayo wax kale ma ahan waa in hadhow tan iyo tan ay iskugu imaadaan hal meel si aan u soo saarno qiimaha theta okay aan ku soo celiyay meeshaas hal mar waxaan dhahnay
si aan u soo helno qiimaha theta waxaad u baahan doontaa koodka yaa cofunction ku ah waxa cofunction ku ah tan waxaad soo qaadataa qaacidada marka ka hadlayso ama caddaynayso in tan iyo kood ay isla egyihiin waatana qaacidada tan 90 degree minus theta soo qaado markii aad soo qaadatid booska kood theta waxaad ku bedelan doontaa tan 90 minus theta ku bedelo kadibna qiimahan kaletana sidiisu soo qora intaas markii aan sameyno waa kana marka sababta u soo qorinayna wax kale ma ahan waxaa sameyn doontaa in tankan iyo tankan aan isku bixino haddii tan iyo tan isku baxa maxaa ku soo hara markaas haddii tan iyo tan isku baxa waxaa ku soo hari doona qaybta bidix waxaa kaaga soo harayso 90 oo laga jaray theta okay equal waxay kuula eg tahay tankan waa baxay maxaa ku soo hara markaas waxaa ku soo haray 25 degree ayaa ku soo haray meesha marka waxaan sameynaynaa si aan u soo helno qiimaha theta waxaan iska wareejinaynaa 90 iska soo wareeji oo qaybtan waxaa ku hari doono minus theta oo kaliya qaybtaas ku hari doono waxa uu kula eg yahay 25 haddii 90 ay soo wareejino markuu inta yaalo waa plus haddii la soo wareejiyo muxuu qaadanaa minus ayuu qaadan doonaa laga jaray 90 degree markii aad kala jirtid wixii kuu soo bixi doono ayaa maxaa dhahay ku heli kartaa qiimaha theta sidaas ayaa ku heli doontaa marka insha Allah aan sii wadna marka سافلا أنت سواد حوا وكان أمريكا تانكي أسكو بحني قيبتهم حكوسو هرا أمريكا سجاشة من ستيت حكوا لأكتهاي لواتن إيشان وحكى لما سمين براكت كسر سجاشة من ستيت إيكوال لواتن إيشان كدي من السيدة أنت كوشجني 90 كسوريجي قيبته حقوق أنت ترى معنا سوت سوريجين وحكى لما أن مركي أن رادين إنه محلها إيكويشن أن حرف أن لا أكون قيميس مثل رادين أيوه حدي بلس إيمانس أول حسوا على سوريجي حدي يكون سنتها إن مالو بالوقع بيا حدي يوقف سنتها إن مالو بالوقع بفتح سياس أيوه هاي ساس أوجد سجاشن كسوريجي مركا ما حكوسو هرا مركا أنتوا حكوسو هرا دونو مينس تيتا وكل إجي هاي لواتن إيشان مينس 90 مركا سوريج كلاجر مركا سجاشن لواتن إيشان محاولة حياة فيره مينس أو حياة لواتن إيشان كعلامة دي سوا بلس سجاشن كعلامة دي سوا ماينس حدي بلس ماينس إسكو إمادان معين وحنا قندون تا هذول لواتن إيشان كل ميل أكو تالو سجاشن كل هدي أكسو قاعدين موحبا يلا مس وحبا لو يلندونا أوتوماتيكال وحبا لو يلندونا مركز وحدينا مرك أما سكر هدي أن أقول إنه ترى وين وحد كجرتها ترى ير قيمة كوسا بحدونه قيمة كوسا بحو علامة قاعدنا وحن كله علامة وامشان علامة قاعدنا دونه وحسيدون تا ترى وين علامة دي حسيدون تا محون قناة مركز من 65 واسلف أنا عمرنا إنتاس أنا كوسا علي هالمر وحن ده نسي أكل جرتين أديكسو كالكولاتر كدب ملهان قيمة سوكوسا بحا لكن لوجيكال أهان لواتن إيشان هدي لجر السجاشن مينس كاسميشو كي ما ذاك هلو نعنى إما إن ده ترى وين ترى الكجر وحي كوسا بحا ترى وين علامة دي سي وإما إن ده لواتن إيشان وحيوة بلاس وبوزيتيف هذا من العقد يتكبر سوقات ببنجي على العقد يالي وحد كسوقات السجاشن كسوقات لواتن إيشان أكوتة على السجاشن كسوقات معنيه وحدة لواتن إيشان تدنا وسوقات لعقد إيرادي وسوقات العقد إيرادي سوقات ما قوى لحدا يشوعه ملقوية لا مسألة يلنيست ولقوية الأساس أوجد علامة مينيس قاعدة أوكي وحوبنا مرك قيماتي إلا هذا قيماتي تمها صوبته مينيس على صوته سيان قيماتي تأصل المحاسمين ميرو بحق قيبنيسا مينيسون أنت نحط قيبسا مينيسون هدوم مرك عسكو بحايو مينيسي مينيس وسكو بحا وعكو سهرة تيتو نظيفة أنت مينيسي مينيس وسكو بحايان وعكو سهرة دون مركز لحدن إيشان قيمها تيتو حكولة كان دونا 65 degree أيو كولة كان دونا سام فيلايو example كاس وواضح واي أنا كسي سعنا مركا example كحيجا عن سيقلنا B أنتجنا مركا A وكذا معنا قيمة مركا تيتو حنا قلنا سالحدن إيشان degree B أنتجنا مركا B وحالو سي sin theta وحاول إجي cos minus دون هاي أم بلاونا مركا أسيجنا solution كيسا مركي أحلنا إنه وحد أباهن دون تمر والبو cofunction كاس أديكسو أي سويدينا مركا sin cos سوق هذا مركا table كاجا أو مركا sin كيا cofunction كوا cos cofunction كوا وعدا سمان مركا سوحدي دون تا sin كي أو وكنا sin 90 minus theta وحيقول أكتر هم حيقول أكتر مركز cos theta وحرمنا مركا أوفيس أنا يا theta وتو نكنا theta وتو سمان كان سوما قادنين وحاسو قادنين كنا سوق قادنين سوت أسوق قادنين وحكلا ما أهن إن هدوه حرمنا مركا بوس كتيتا إن أكو بدلنا قيمة تيتا يكون أكتاي ساين تيتا وكنا
cos 90 minus theta soo qaado markii aad soo qaadatid waxaad ku bedeshataa booskaas qiimihiis ku bedesho marka cos 90 minus theta equal sin theta qaacidadii aad soo qaadane qaacidada markii aad soo qaadatid waxaa samaysaa marka u fiiriso sinka waa kana mujida sin theta gadaal aan aqrin wuxuu ku leeg yahay cos 90 minus theta waa Soomahan maadaama qiimahan uu ku leeg yahay booska sin theta waxaad ku bedeli kartaa qiimahaas ku bedeli kartaa marka okay cos maxaa yeelay way isla eg yihiin aan ku bedelana marka ku bedelo muxuu noqonaa markaas wuxuu noqon doonaa cos 90 minus theta sidii u soo qoray ilaa qiimahana ku bedelato Sooma ahan cos 90 minus theta markii qiimahana ku bedelatay intan sidii u soo qoro intaas sidii u soo qoro waxaa xiga marka cos 30 qaybtan keenso markaas oo macnaha waxa sameysay kana qabatay kana barbixisay booska ka bixisay cos 30 sidii u soo qaato oo waxay noqon doontaa cos 90 minus theta equal cos minus 30 ayaa noqon doontaa marka intaas markii amrayna maxaa sameeynaa marka waxaa sameeynaa intaas in cos iyo cos aan isku bixino hadii cos iyo cos la isku bixi maxaa soo haraa marka cos kan uu baxa cos kan uu la baxa maxaa ku soo haraa markaas waxaa ku soo haraa marka inta waxaa ku soo haraa 90 oo laga jarahe theta ayaa ku soo harayso equal dhinaca kalena waxaa ku soo haraa minus 30 oo fiirso meeshaas minus 30 okay si aan theta u soo helno waxaa sameeynaa 90 iska soo wareeji waxaan noqonaa markaas minus theta equal minus 30 soo qoro 90 markii plus oo taa markii soo wareeji wuxuu qaadanaa minus 90 okay haye minus theta waxa uu kula ekaan doonaa tan tii hore waxay ahayd midna plus waa midna minus waa laakiin kan u fiirso labadoodu maxaa waaye minus iyo minus oo micnaheedu waxa waaye 30 kun deena qaadat waxaad ku sii darsatay 90 kun oo deen ah meeqa lagu yeelnaa 120 kun ayaa lagu yeelan doonaa minus na sii raacsi oo micnaheedu taa 120 kun oo deena lagu leeyahay markaas si aan u baabi'ino marka minus kaas maxaa sameeynaa meel waxa u qaybinaynaa intan waxa u qaybisaa minus 1 intan waxaad u qaybisaa minus 1 minus ki minus isku baxayaan minus ki minus isku baxayaan qiimaha theta marka muxuu noqon doonaa waxa uu kula mid noqon doonaa 120 degree ayuu kula mid noqon doonaa markaas okay kaliya waxaad u baahan tahay in coefficientskaas aad fahansan tahay basic calculationskana aad wax ka taqaantid intaas oo kaliya ayaad u baahan doontaa aan sii wadno marka example kan waa kaas marka b 90 minus theta equal cos iyo cos meeshan la isku bixiyay minus 30 kadibna maxaa la sameeynaa bracketyada ka bixi 90 minus theta equal minus 30 kadibna 90 soo wareeji maxay noqonaysaa minus theta equal minus 30 minus 90 minus 30 minus 90 maadaama labadoodu minus iyo minus ay wataan waxaa sameyn kartaa calaamadaha hadday isku mid yihiin tirooyinkooda isku darsanaysaa calaamadahan hala ka soo qaadan kartaa sidaasna waa sameyn kartaa 120 ay noqonaysaa calaamadahan hala ka soo qaado oo minus 120 ay noqonaysaa si aan u soo helno qiimaha theta maxaan sameynaynaa meel walba waxaad u qaybisaa minus 1 intana waxaad u qaybisaa minus 1 theta minus iyo minus isku baxayaan markaas theta muxuu kula mid noqonaa 120 degree ayuu kula mid noqonaa example ka xigana geey marka c example ka labaad qaybtiisa saddexaad waa marka cosec 3 pi over 4 waxay kula egtahay sec x ayaa lagu dhahay markaan x aan raadinaynaa labadii hadda aan soo dhaafno waxaan raadinaynaa theta qiimaheeda laakiin markaan waxaan raadinaynaa x ayaan raadinaynaa ya la soco marka solutionka saddexaad aan galna marka cosec 3 pi over 12 waxay kula egtahay sec x ayaa lagu dhahay yaan soo qaadanaa mar walba waxaad maskaxda ku haysaa ninka aad raadinaysid waa reebanay horta ko macna kan theta wato ama kan x wato waa reebanaysaa okay markii aad reebatid waa reebanay maxaan ka wadaa macnaha waxaan ka wadaa hadhow marka waxaan rabnaa qiimaha oo u dhigmo markii aad soo qaadatid waxaad reebanaysaa qiimahan kale ayaa reebanaysaa qiimaha oo xarafka watana waa baabi'in doonta oo waxa ku bedelan doonta qiimaha oo la eg yahay ayaad ku bedelan doontaa marka table noo soo qabo marka yaa la eg sec x yaa la eg marka aan raadino wax sec x waa kana marka cosec 90 minus theta wuxuu kula eg yahay sec theta marka meesha hata theta aan haysano maxaan haysanaa x aan haysanaa dhib malahan qiimaha theta waxaa ku bedelinaynaa marka x ayaan ku bedelinaynaa oo waxaa soo qaadataa qiimaha soo qaado cosec 90 minus x equal sec x maxaa sameynaynaa marka inta markii aad maraysid sec x qiimahan kula eg yahay soo ma ahan qiimahan iyo waxa isku bedelaysaa sec x isku bedelo labadaas qiimadood isku bedelaysaa markaas haye aan sii wadno wuxuu noqon doonaa markaas sec x dhanka midiga u soo wareegsada markaan yaa
cos 90 minus x kana dhanka bidix dhanka midig ii keen midkana dhanka bidix ii keen macnaha waxaa samaynayaa qiimaha aad raadinaysa mar walba waxaa fiican inuu dhanka bidix yaalaa kuu fiican marka dhanka bidix keenso cos 90 minus x waa ku bedelan equal qiimahan kala soo qaado oo ahaa cosec 3 by over 12 cafwan over 12 maan meeshan over 4 aa laga rabaa yaa cosec 3 by over 4 meeshas aan bedelno 3 by over 4 marka meeshas waxay noqon doontaa cosec 3 by over 4 okay cosec 3 by over 4 marka ay noqoto maxaa sameynayna markaas waxaa sameyn doontaa in cosec iyo cosec aan isku bixino isku bixi marka labadaas waxaa dhici doona in cosec iyo cosec aan isku bixino waxaa ku soo haraya markaas inta 90 minus x ku soo harayo intana waxaa ku soo haraya 3 by over 4 ayaa ku soo hari doonto si aan u soo helna marka fiiri meeshan hadda radian la isticmaalayo by ayaa yaalo haddii hadda waxaan soo sheegnay qiimaha 90 waxaad ku bedeli kartaa by over 2 ayaad ku bedeli kartaa yadhaana mujida by over 2 noogu bedel oo micnaheedu ah 180 haddii laba loo qaybsho meeqa waa 90 waa oo waxaan isla ekaysiinayna marka cadaaladda markii aan u fiirino ama equationka markaan u fiirino inta waxaad haysataa radian intana waa inaad radian ka dhigtid sidoo kale qiimana oo bedeli kartaa oo waxaad dhigi kartaa 3 lagu dhufto 180 oo loo qaybsho 4 na waa dhigi kartaa waana ku shaqey kartaa dhib ma lahan laakiin hadda radiankiina ku sii wadeynaa x si aan u soo helno maxaa sameynaynaa by over 2 waa soo wareejinaynaa dhankana keenanaa maxuu noqonaa markaas wuxuu noqonaa minus x dhankaas kugu soo haraya equal 3 by oo dhinacan taalay 3 by oo dhinacan taalay oo loo qaybsho 4 yaa u imaanaya markaas by over 2 plus waa markuu inta imaado muxuu qaadanaa markaas by minus by over 2 dhankaas u imaanaya markaas waa kana marka minus x equal 3 by over 4 minus by over 2 intaas markii la marayo maxaa la sameynaa marka halaas markii la marayo waxaa la sameyn doonaa in hooseyaha fiirinaya marka haddii hooseya oo isku mid yahay waa okay laakiin hooseyaha waa kala duwan yahay waa 4 iyo 2 maadaama uu kala duwan yahay maxaa sameynaysaa LCM u raadi LCM ka waa 4 soo qoro 4 waxaad u qaybisaa 4 hal waaye hal waxa ku dhuftaa 3 by muxuu noqonaa markaas 3 by soo qoro oo laga jaray waxaan ka jaraynaa marka 4 waxaad u qaybisaa 2 waa 2 by ku dhuf meeqa ku soo bixayso waa 2 by haddii 3 by aan ka jarna 2 by maxaa ku soo baxayo hal by oo kaliya ayaa ku soo bixi doono oo la hoos dhigi 4 saas awgeeda qiimaha x muxuu noqonaa markaas wuxuu noqon doonaa maxaa leeyahay 4 afan marka meeshan waxaa haysanaa minus x maadaama aan haysano minus x equal wuxuu noqonaa markaas by over 4 ayuu noqon doonaa si aan u baabi'ino marka minuska meel walba waxaad u qaybinaysaa minus 1 saas minuskan sidaas ayuu ku imaado oo waxaad dhihi doontaa minus x waxa uu kula eg yahay by over 4 kadibna si aan u helno qiimaha x meesha minus taalo minuskaas iga baabi'i meel walba minus 1 u qaybi intana minus 1 u qaybi minuskan iyo minuskan isku baxayaan x ku soo harayo intana muxuu qaadanaa markaas wuxuu qaadan doonaa minus by over 4 waa kaasa qiimihii x saan filaayo examplekaas waadix waaye halkaas ayaan ku joojinaynaa insha allah la socod wanaagsan iyo xiisada kaleeto oo aan ku bixin doono exampleka xigta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.